inta xiriir la sameeyaan qof LGBT amba qof khaniisa ayay meel kula ballamaan bay hadhowtana dhibaateynayaan qofka. dadkaas kuwa uma xanaaqsanay runtii. waxaan u xanaaqsanahay bulshada sabooreysa dad caynkaas oo kale ah ay ku dhex nool yihiin. waayo hadday maanta waddanka Norway joogi lahaayeen waa huba in maxkamad la saari lahaa. I'm quite sure inta nimanka la soo qabtay in maxkamad la saari lahaa. aad iyo aadna beryaha ugu dambeeya waxa warwar aad ay igu riday berigii hore waxay odhan jireen Soomaalidu ma jiro dad khaniisiin oo Soomaaliya. hadda sheekada halkaa way kasoo gudubtay. 99% hadda way ogyihiin inay dad khaniisiin jiraan. markaa waad arkaysaa tallaabada labaad ee qaadeen waxay noqotay inay dadka dibjiriinta sharciga gacmahooda ku qaataan. ay qof miskiina oo dhibaataysan oo Soomaaliya jooga oo aan iska celin karin iska difaaci karaynin ay intay filim kasoo duubaan dhahaan sidan baa tahay arkaysaa sida u dhaqmayeen. systemka iyo dowladda Soomaaliya ka jiraana uma eka inay arrinta wax ka qabanayaan. runtii waa wax aad saaro ah. 2 cisho ka hor waxaa arkayay nin wasiir Soomaaliya oo yimiday Norway yimiday oo waddankan yimiday. waan dhageystay wuxuu ka hadlayay wuxuu lahaa waddanka dhibaato xoog la ka taagan bulshadana dhibaato xoog la haysata. bulshada baahi baa haysata. waxaan u baahanahay in la caawiyo oo dowladda Norway lacagna siiso ayaan u baahanahay. markay dowladda Soomaaliya situationadan oo kale arkayaan waxa lagu sameeyay dadka masaakiinta waddanka jooga haddii ayna tallaabo qaadin dowladda Norway anagu xaq waxaan u leenahay inaan wargelino. waa inaan wargelino oo ku khasbanahay aan u sheegno waxa waddankeena ka socda. markaa nimankiina wax dilaya caruurta dhibaateynayo filmaan badan noo soo duuba si ay documenti noogu samaysaan inay dad badan oo victim oo Soomaaliya jiraan Soomaaliya. markaa informationka iga gaadhsiiya si fiican aad nimanka odayaasha soo duuba wax badan. markaa view badanna waad ku heli doontaan. anaguna information baan heli doonaa dhibta dadka soo gaadhaysa masaakiinta Soomaaliya degan. waayo waddankan aan ku noolnahay diinka ma taliso. waxa ka taliya waxa weeyaan xuquuqda bini'aadanka si muxibba kasoo hadlaysa markii dhaweeto qof kasta bini'aadan xaq uu leeyahay. markaa dadka khaniisiinta ku tuntumanaysan Soomaaliya jooga iyaguna xaq bay waddankan leeyihiin. dowladda Norwayna ma accept garayn doonto amba wadamada Yurub ma accept garayn doonaan inaad sidaa ula dhaqantaan dad bulshada Soomaalida ka mid ah. dadkiina iyo walaalihiina janno galayaalow waad maqlaysaa waxaan ka hadlayo. qoladiina jannada u socotaa. jannada anu ma rabo. janno ma wada geli doono. taa uma socdo inaa qof walaalkaya oo LGBT iyo Soomaaliya ku nool amba Afrika ku nool aad sawirkiisa soo dhigtid social mediaha. wax aad looga fiican yahay weeyaan. runtii waa wax niyad jab aad u weyn weeyaan. anu aad baan uga yaabay. waa maqlay maalmaha ugu dambeeyay dad la leeyahay dadka kale soo dhigayaan ee magacyada soo sheegayaan. ilaa haddana taa ma fahmin wax ku kalifay. runtii wax aad iga yaabiyo weeyaan. sababta taas ku kaliftay ilaa hadda waa ka fikiray wax fara badan inaa qof walaalkaaya oo isqarinaya oo dhibaataysan oo bahdilan oo aan cid aan adiga ahayn haysan oo habeenkuu soo galo TikTok amba meel social media soo galo sirtiisa kugu qarsado ku yiraahdo qof anuuna saadoo kala abaan ahay oo walaalkaaya oo ku baahan oo adiga ay Yurub joogtid ama Mareykan joogtid oo caawimo ku soo weydiistay intaad hadhowto soo dhigto TikTok amba social media tiraahdo qofkan waa sidaas waan qarxiye. wax kugu waajiba markaa ma garanayo anu runtii. waayo wallahi I don't wax kugu waajiba in adiga sharcigaaga inta lagaa qaado in isaga la siiyo adigana Soomaaliya dib loogu celiya kugu waajibtaa.
runtii hadda aanu baawar leeyahay taas baan samayn lahaa, waayo wax kaloo kugu waajibaa ma jiraan. marka waxaa idinkula talinayaa asxaabtayda, qof walaalkaayo LGBT ah waa faamilkaaga, cidaan adiga ahayn ma laha. markaas saas ogow, ka warhay faamil adiga gaar ha kuu noqdo, iska warhaya, isku naxariista. cid kaloo idiin naxariisanaysaa ma jirto. waad aragteen social media, tii habeenkii seexan weyda iyo kii problem kala haysto, iyo ninkii naagtiisa furaa, iyo naagtii ninkeeda furtaa, iyo qofkii wali xanaaqsanba wuxuu ka bilaabayaa cayda, khaniisadda. Soomaali halkaas baynu joognaa. marka anu waxaan garan lahay waxaad isku ilowdeen, halkaad isku ilowdeen. yaa tahay markaa intaad internetka soo fadhiisatid aad leedahay qabiilkaas baan ahay, oo qabiilkaygu waa sida. qabiilka wax kugu falaya halkuu joogaa? qabiilka ku rabaa Soomaaliya ku rabay dadkeena LGBT-ga ama khaniisiinta baan difaacaynaa Soomaaliya, bal iisoo sheeg qabiilku yahay halkuu joogaa? maad iisoo sheegay qabiilkaas iyo ciddaas? wallaahi niyad jab weyn baa igu riday, aad iyo aad. qofkaasuna waa is ogtay qofkaa tahay. haddii problem ku haysto oo aad dhibaato ku haysato, problemkaaga kuma xalinaysa inaad dadka LGBT-ga soo qarxisid, aad social media soo dhigtid sawiradooda iyo magacyadooda. dhakhtar u tag, waddan dhakhtaraad joogtaa, waddan psychologiyaalaad joogtaa. waxyaaba badan oo la isku daweeyaa jira. dawooyin baa la qaataa, tareerin samee, cunto helsiya cun, seexo saacado badan, israada adigu qofkaa tahay, kalsoonidaada raadi. laakiin qof Soomaaliya walaalkaayo dhibaato haysato inaad internetka soo dhigtid, we don't accept that. waxyaabaa isku badbaadiyay ka mid tahay had jeer markuu waqtigu adag yahay, kabaa sportigan gashadaa, xabaar baan soo ordaa. marka had jeer soo laabatid, guriga soo laabatid, aad shower qaadatid, aad relax samaysid, aad cunto cuntid, maskaxda uu nafisa, jirkaaga uu nafisa. dhib kastoo adduunka jirta u baahannahay waxay tahay inaan saltilidkeena awood kor u soo qaadno, aan kor isku soo qaadno. waayo badanaa waxa laynaga soo dhaadhiciyey inaad qof dhammaystiran ahayn. waa arkaysaa baan ku dhahay, markay kula hadlayaan dadkan perfectiga isku haysto ku jira social mediaha, waa aragtay commentiyada ay kusoo qorayaan amba siday kula hadlayaan. taasna macnaheedu maaha inaad qof ka liita tahay, waa mentalityga bulshadeena, waa sida mentalityga bulshadeena u shaqayso. bulshadeena waa la isku dul nool yahay. anuu xasuustaa Soomaaliya markaan joogay, waxaa guryaha ka shaqayn jiray wiilal jiljilicsan oo sida dumarka oo kalaa, oo magacyo Soomaali loo isticmaali jiray. bili-aadan caadiya loolama isticmaali jirin sidii loo dhaqmi jiro oo kale. marka kelmadaha marka laynoo isticmaaliya oo kale, laga roonaa tahay, macnaheedu waxa weeyaan qof aan dhammaystirnayn baa tahay. dadkeena iskaga khaldan badanaa waxay tahay inay kala duwayn sexualityga iyo personalitygu. inuu qofku dareen qof kale u hayo ma ka dhigi doonto qofkaas inuu qof ka liito qof kale yahay. never. waa feeling. anigu weligay kaysaan ahay, kartideedii awoodeedii caqligayga kaysaan ku ahay. qofkaa rabaana kula seexanayaa. laakiin waxaad moodaa xayawaannimo dadkeena intay ka gaadhay waxay isku khaldayaan shalmadan sito iyo personalitygaan haysto. marka waxaa leeyahay soo toosa, waad seexateene. dad badan hurday ku jiraana way toosi doonaan, laakiin udaa intay kasoo toosayaan. they will see what happen. adduunka iska baxdeen, dhibkan iska doorateen. marka muhiimadda ugu weyn meeshan waxa weeyaan inaad adu isa soo dhistid, shaksiyadaada isa soo dhistid, aad qofkaa tahay tustid bulshada kugu wareegsan, aanad noqonin qof xun oo liito, oo sida iyagu rabaan aanad noqonin. wafahmaysa waxaan ka hadlayo? xasuuso that